booliiska ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa maanta cisbitaal ku yaala gudaha caasimadda kala baxay Sheekh Shantaay oo caan ka ah baraha bulshada ay ku wada xiriiraan waxaana ay dhigeen xabsiga ku yaala degmada Hodan. Wararku waxay tilmaamayaan in cisbitaalka Digfaar uu ku sugnaa sheekha markii ciidamada ammaanka ay kaxaynayeen. Xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya waxa salka uu ku hayo xariga Sheekh Shantaay. Dadka qaar ayaa warinaya in loo haysto sheekha hadal uu jeediyay oo ku saabsanaa in koox ciyaal weere ah lacago baad ah ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala wadooyinka degmada Hodan ee gobolka Banaadir, taasi oo ay si weyn uga xumaadeen maamulka degmada ayna go'aansadeen in ay gacanta ku dhigaan oo ay su'aalo weydiiyaan. Sheekh Shantaay oo ku soo caanbaxay dhaliilida dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan kuwa waxyaabaha anshax xumada ah sameeya ayaa mararka qaar ka hadla arrimaha siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee habdhaqanka siyaasiyiinta iyo hoggaanka Soomaalida. Wararka qaar waxay sheegeen in Sheekh Shantaay uusan wax walwal ah arrintan ka muujinaynin, su'aalaha la weydiinayona uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo. Taliyaha booliiska degmadaasi Xuseen Cadceed oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho wuxuu sheegay inuu jiro xariga wadaadkan isla markaana ay weydiinayaan su'aalo ku saabsan dacaayad raqiis ah oo uu faafiyay, taasi oo ay qayb ka tahay in laamiga Taleex ee degmada ciyaal weero lacaga baada ay uga qaadaan gawaarida xamuulka ah sida uu hadalka u dhigay. Sheekh Shantaay xarigiisa waxaa si weyn loogu hadal hayaa baraha bulshada ay ku wada xiriiraan. Qaar badan oo isaga taageersan ayaa waxay leeyihiin waa qalad xilligan in la xiro Sheekh Shantaay. Dad kale oo aragti ahaan ka soo horjeedana waxay qabaan in Sheekh Shantaay uusan xaq u lahayn in arrimaha noocan oo kale ah uu ka hadlo, isla markaana ay tahay in cadaaladda la marsiyo.